عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سورة وسورة بقول إيا شناب مقعد سورة الفيل بالليلة لأصحاب الفيل بيكون مقعابا. سورة الفيل ومكية، وحي كمتها سورة لها سودة انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكا قده دوكو نولا. سورة آياتها كوبانتو 5 آيات. سورة الفيل هذا الكذا دنون بو إسولة جيدا أرين كلية كساب سيحي. أرين تانا وحوية قصة دعضي مده الرئيسي أياي سورة كساكيس. أرين تدعضي وحي هاي من حبشي ولا شاهان دين أهالنا مسيحي ayaa xukumi jiray dalka Yemen iyo waxa ka dambeeyo dhan. magaciisa Abraha la oran jiray, aabihii Ashram baa la oran jiray. Abraha Ashram ninkaas xukumi jiray. marka ninkaasi wuxuu qoonsaday Yemanta oo markaas iyo wixii ka xagga isaga xaakimnimo iyo boqornimo iyo qiimo u muuqanayay Arabtan Xijaaz marka iyo Quraysh waxsaas ma ayaan ahayn. kolka xajka loo soo xajinaya Kacbadu qoonsaday marka aqal yaab loo ka dhisay Sanca. aqal yaab leh oo kaniisa Abu Sanca ka dhisay. kolkaasuu damcay in meeshii looga soo xajinayay Maka halka laga taga. arrintii baa qoladan Quraysh ka wareeshay. nin baa u kacay idima dirin, isaga isdiray. meeshii la qurxiyay la hagaajiyay buu habeennimo dhex tegay. kolkaasuu xaar marmariyay. hawanimana ka dhuuntay meeshii oo subaxdii uraysaa la arkay. waa la baadi goobay. arrintii ninkii gacanta laguma dhigin, laakiin waa la gartay hagartu meeshay ka timid. nimanka aad u quusaysay ee Quraysh ee Maka leh, nimankaasaa marka ay maqleen waxa aad ku tala jirtid inaad rabta meesha inaad u baabi'isid, meeshaas ayaa qoonsaday hagartan iyagay ka suura gashaa, dad kale maaha la yidhi. odagii marka wuxuu yidhi taasi waxaan kaga caafimaadi karaya inaan taasoo dudumiyaba. awal tartan unbay ahayd, tanna waa muuqatay, laakiin taasaan soo duduminayo. ciidan la yaqaan buu ninkaasi ku soo duulay. markuu u soo duulay meesha inuu jajabiyo oo Kacbada baabi'iyo u yimid. wixii kula dagaalamaana uu baabi'iyo. haddaan lala dagaalamin dantiisu waxay ahayd Kacbada duminteeda oo keliya. marka markii arrintaa uu ninka ku soo duulay, gaadiidka u raran badankii maroodi buu ahaa. siduu ninka u ladnaa maroodi baa uu gaadiid ahaa. intuusan soo gaarin Xijaaz, carabnimaa loo xanaaqay. dhowr nabadoon baa la dirirtay. dhowrkiiba waa qaqabtay. ciidamadiisuu ku soo badsaday. isagoo wixii isku dayayna ka adkaaday oo ciidamadiisa ku soo biirsaday buu wuxuu soo gaaray Musdalifiya Muna dhexdeeda. waa dil muxasar baa la yidhaa. magacii bay xambaarsan tahay. kor markaad kaga timaadid Muna ood xaggii Carafa ka timaadid ood Musdalifa soo dhaaftid, meeshay Musdalifiya Muna iska qabtaan wey. waa dil muxasar baa la yidhaa. halkaasaa ninkii iyo ciidamadii soo gaaray. halkaa markuu ninkii soo gaaray, xoolihii Maka ka foofay baa u tegey. xoolihii buu qabtay. xoolihii marka uu qabtay, Cabdilmutalib baa markaas waayeelu ah Maka. waa nebiga awowgii. ninkaasaa nabadoon oo waayeelu ah. geeli buu erge ugu tegey. kolkaa odagii buu u tegey Abraha Ashram oo ciidamada watay duulaanka ah
وحير قال إن لا دايان ربا ودقي وحير ورواكو سيدين عن كعبة بابية نسعد مياه لقول شيء ولا أي شيء يبوي وهذه ما حد قال لها ليس هدان كعبة يدو مناي تاسي ربي بإله ده يبوي أنا قلت قال الرب هاي على هاي جايسي كل كاسي ربي يعلنا يا ذي ماشي حكومة هذا كعرر سواه معي لحدين اللي جو مجرى وهذه إساقة يا هلا هاي جيدة هل يسيب اللو داي مركب وحوي هدادا إلى الدجالمي ضد كاغا ماشي يقبح وحوي ضد كان كاغا بحين هي مدة يسي مدة وضقي اللي سي عبد المطلب ها ضد كيبو يري هارها لا وضفورة كبح ماشي والله قبحي وحكون حجرا مركي اللوايي وفرديه يوسوك إيا ألابتي أيا إذا مدن كشا كاين إذا صورة فبسمدك كايني شمبرات ربضا ومثل أركاب سدح دقح أي وضو دقح أفكا أي كسيدو إيا اللبا أي لبدا اللقود كسيدو إسكنين باللقو ودا سدح دقح مثل أركاب قفك اللوغو تلقلي أيام مقعيسا كويا كل كاسي مدح أقرر ديسا كل كامل أين كرتو أدون كان دقحيال كامل شمبرات الله كسالي هل كاسارينا كبابين قصداس markay dhacday iyo markuu nabiga dhashay konton maalmood baa u dhaxaysay marka taariikhdan islaamka hijrada la tirsadaa ma jirin laakiin midda miilaadiga dhalashadii nabi ciise 570 sano laga joogay 570 sano laga joogay marka dhalasho aan rasuulka arrinta weyn markay dhacday bay dhalashadiisu ku taariikhaysan tahay caamal fiil baa la yiraahdaa maalin ahaan hadii la yiraahdaana maalinta ciidamada jabeen iyo maalintuu dhashay konton maalmood baa u dhaxaysay waxay marka taa noqon karaysaa irhaasaad ama gogol dhigid isaga loo gogol dhigayay nubawadiisa kolka walow dadkii markii degnaa la dhaqaaleeyo lagu dhowray oo loogu abaal sheegto inuu arki doono haddana dhalashadii isaga uu dhalan lahaa iyo waktigiisa waxay taasi u ahayd calaamooyinka waaweyn ee ku tusinaya nubawadiisa iyo dhaqaalaha iyo ilaalinta rabbi uu rasuulkiisa u lahaa kolka suuradda gidigeed dhankaasay isula jeedaa qisadaasay ka hadlaysa kolka markaan dambe ay suuraddu soo degtay dhibaatadaas oo qoladatan rabbi ka daafacay dhaqaaluhu lagu u qaybsamaa dhib kugu soo fool leh in lagaa daafaco iyo dhaaf in lagu sameeyo kolkaa dhib la iska daafaco tanaa ka hadashay suuradda xigtee suuratu quraysh la yidhaahdaana dhaqaal bay iyadana ka sheekaysay oo nabadgelyo iyo cunto iyo intaba la isugu daray kolkaa tani waxay ka sheekaynaysaa arrintaas loogu abaal sheeganaya quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisii asaasyada lagu garanayay ka mid tahay caasiyaalka kibray ee ku adkaysanaya ilaah iyo waxyaaluhu qiimeeyey inay ka hor yimaadaanna ictibaar bay u tahay sida ninka loo baabi'iyey isagoo wax bashara oo hortaagan aan la arag meeshaa rabbi qiimeeyey ee xaramka kacbada waan baabi'inayaa markuu yidhi isagii baa alla baabi'iyey qaala tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim abda-u haadihi suura suuradatan waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magicii magaca cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud oo addoommadiisa wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaaneedoo inta rumaysee raacday adduunka ku rumaysay ee ku raacday uu aakhiro ugu naxariistow alam tara ma waadan ogeyn kayfa sida facala rabbuka rabbiga uu ku sameeyey biasxaabi ilfiil maroodiga qoladii wadatay istifhaamta sidaasee laga cabiray waa taswiiq laisjeclaysiinayo iyo weliba haddana buunbuunin arrintaa la buunbuuninayo waxa nimanka alla ku sameeyey geed looguma soo gaban qudradii ilaah oo maxdi ah qaabishay ciidamo aan la filayn oo hortoodna waxay laayeen aan la arag ayaa iyaga dusha kaga dhacay kolkaa waxa qoladaa lagu sameeyey wax lamida ma uusan lahayn alam tara ma waadan ogeyn oo ayan ku soo gaarin kayfa sida facala rabbuka adiga rabbigaa uu ku sameeyey biasxaabi ilfiil maroodiga qoladii saaxiibyaalka u ahaydo maroodiga kusoo duushay wey qolada asxaabulfiil ee tilmaantooda la xusay siday isula weynaayeen makhluuqaadka la yaqaanay caadigeen naflaha ah inta ugu waaweyn buu maroodiga ku jira isagii baa la gaadiidsaday heerka la gaaray bal arag in maroodi la gaadiidsaday ayaa la gaaray kolkaa nimankii heerkaa gaaray waxa ku dhacay arag biasxaabilfiili maroodiga kuwii asxaabta u ahaa ee ku soo duulay waa abrahiya ciidamadiisa waxa allaha ku sameeyey taama waadan weli ogaanin wey alam yajcal ma wuusan eebba yeelin waa uu yeelay kaydahum
hagarta marka ay ku socdeen oo ahayd inay kacbada baabi'iyaan ayaa iyagii in la baabi'iyey alla ka yeelay laba dhibaataa markaa isugu dhacday midi waxa weeye dantoodii ooyan gaarin oo waa hongoobeen kolkay kacbada baabi'in lahaayeen ma ayan baabi'inin kolka muraadgaf ay dantoodii sheegeen iyo baaba iyagii loogu abaalguday labadaa la isugu daray wasadaqa allahu id yaquul walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi hagar foolxun wax ku dhinta waxaa ugu horeeya wixii maamulo wey kolkaasaa rabbi labadiiba sheegoo yidhi alam yajcal ma waan marka hore eebba yeelin sidii ilaah nimankaa ku sameeyey ayaa laynoo sharxayaa sidee ku sameeyey wey sidii ilaah asxaabulfiil uu ku sameeyey ma aanu ogin wuxuu ku sameeyey alam yajcal ma waan eebba yeelin kaydahum hagartii ay wateen iyaga oo inay kacbada baabi'iyaan ahayd ma waan kolka hore fii tadliilin khasaare gudaheed eebba yeelino taasoo kuma ayan hongoobino miyay kacbadii waxba u dhimeen waxba kuma ayan dhimin wey kolkaa ninka odaga isku sheegaayey ee ciidamada dhan tabaabushaysanayey ee sanayaalka wax uruursanayey ee dantii intaas uu u baaba'ay u alaaba xirxirtay ka hongoobay khasaarihii koowaadu alam yajcal ma waanan eebba yeelin kaydahum asxaabulfiil hagartii ay samaynayeen oy damacsanaayeen ay ku soo tashadeen fii tadliilin khasaare gudihii xaggaa markii laga banjariyey oy muraad gafeen oy dantoodii sheegeen ay hongoobeen haddana wa arsala intaa looguma dayn ma waan eebba dirin waa uu diray calayhim iyada dushooda tayran shimbiro ma wuusan ku dirin abaabiila kooxa kooxa shimbiro aan la aqoon oo meeshay ka yimaadeen waagaa ka horna lama arag kadibna lama arag kolka shimbiraha noocaasa oo kooxa kooxoo safsafa hidira iska daba dhacaya ayaa rabbi dushooda ku diray waxba kama cayman intoodii meeshayba ku dhammaadeen odaga oo halakaysan oo banjaro inkaari ku dhacday yaa naf baas meeshii geeyaa la yidhi isna shimbirtiisii baa dul socotay intaa uu sii soconayay bay dul socotay kolkuu dalkii tegey iyo madaxa kaga dhufa kolkaa waxba reerkii kama cayman isagana waa la tabar tusay baktigiisa sancaa la gaarsiiyey ciidamadana halkaanaba lagu xaqay wey wa arsala ma waanan eebba dirin waa uu diray calayhim iyaga dushooda tayran shimbiro abaabiila kooxa kooxa ah shimbirtu maxay samaysay tarmiihim waxay shimbirtu ku gantay asxaabulfiil bixijaaratin dhaguxu dhagaxan caadiga ah ma ahayn ee wuxuu ahaa min sijiil dhooba la dubay oo dhagax kol laga dhigay asalkeedii dhagax ma ahayn markaasayna khatar tahay oo dhagaxa kan caadiga ah dab haddii la dhex geliyo intuu burburuu nuurad noqda haa baaba-a laakiin dhoobada la dubee dhagaxa lagu sameeyey waa sandharyaha laga dhigtay wax ka adag dab oo dhan haddii la isugu keena wax kama qaban karayo kolka mid noocaas oo dhagax ka daran oo dhoobo ah oo naar lagu soo sameeyey kii baa rabbi ku soo diray waxaa qudrada ilaah kamida yaabkeeda dhagaxa waxa wadaa waa shimbir wax u dhimi maayo maroodi buuna dilayaa dhagaxu maroodi iyo dad buu dhagaxu dilayaa shimbir baana sida wahada min acdami qudratillah ilaah qudradiisa arag waxa weeye dhagaxu fasax uma qaba shimbirta maroodiga iyo ragga wata qoladaasaa loo soo diray tarmiihim shimbirtii waxay ku gantay asxaabulfiil bixijaaratin dhagax bay ku gantay dhagaxaasoo min sijiilin dhooba dhagax lagu sameeyey dhooba dhagax laga sameeyey oo la dubay oo dab inta lagu sameeyey dabadeed dhagaxowdaya kolkaas siday u daateen tilmaantuu rabbina sii arag fajacalahum waxaa eebba ka yeelay asxaabulfiil dadkii duulaayee dhisnaaye ciidamada ahaa ee habaysnaa ee hubaysnaa ka casfin xabuub ma'kuulin la daaqay beer lo' lagu daayey beer angegtay oo lo' lagu daayoy baldaaqayso kolkaa waxay cagta ku qaado caloosha waxay geliso waxay isku daagto waxay faantiya xaar saartay ka dhigayso ebri weeye beer lo' daaqday ninkii yaqaan baa yaqaan kolkaasaa ilaah tilmaantii yidhi say nimankaa masiibada ugu joogsatay waxay noqdeen ka casfin ma'kuul waxba kama taagno naf malawe mid la goostoo la cunay dabaylaha mid raacay mid la isku taagay mid faanta la dul saaray fajacalahum waxaa eebba asxaabulfiil ka yeelay ka casfin bal ma'kuulin la daaqay oo kale